فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. hadda ka hor waxaa safar galay 2 nin oo gaalo ah oo hindi ah. waxaa dhacday iyagoo meel saxaro socdo ayaa waddadii ka luntay, gaajo daranna way qabatay. kadib waxay arkeen tuulo yar oo ku yaala masjid iyo guryo yar ay ku yaalaan. labadoodu way iswareysteen, waxay yiraahdeen tuuladan aan ku leexano, cunnana aan weydiisano, waddadii aan ka lunayne hana hagaan oo waddo saxa ah nagu jeediyaan. mid ka mid a labadii nin ayaa wuxuu yidhi, maadaama halkan dad muslimiina ay degan yihiin, tuulana ay ku taallo, masjidna uu ku yaallo, aniga waxaan baxsanayaa magaca Axmed si dadka tuulada iyo imaamka masjidka markaan tagno ay aad noogu naxariistaan, waxna noo siiyaan. waxaan iska dhigaa inaan ahay qof muslim ah, magaceygana waxaan u bedelayaa Axmed. ninkii kale ayaa yidhi, aniga been ma sheegayo, gaalnimadeyda iyo waxaan ahay ayaan u sheegayaa iyo inaan hinduu ahay. sidii ayay sameeyeen, midna wuxuu qaatay magaca Axmed, midna magaciisii ayuu watay. waxay u tageen imaamka masjidka, imaamku wuu soo dhoweeyey, labadoodiina wuu wareystay. mid wuxuu yidhi, Axmed ayaa la yidhaahdaa, muslim ayaan ahay. midkii kalena wuxuu ku yidhi, aniga diinta islaamka ma haysto, waxaan ahay hinduu. wuxuuna u sheegay magacii markaa uu watay. imaamkii ayaa amray nin masaajidka la joogay inuu cunno macaan u soo iibiyo ninkii gaalka ah ee hindiga ahay, cunnadiina loo keeno iyo cabitaan si gaajadii uga baxo. halka ninkii Axmed la baxayn imaamka uu ku yidhi, wa anta ya Axmed, adigana Axmedow, waxa waaye ramadaan kariim, ilaahay ramadaanka ha kaa aqbalo maadaama bil ramadaan ku jirno, muslimna aad tahay, ilaa iyo afurka waad nala joogi kartaa, waadna nala sugi kartaa insha allahu tacaala. sidaas ayuu ninkii gaalka ahay cunnadii ku cunay. kii islaamnimada sheegtay ee aan muslimka ahayn ee isdhahayay dadka tuulada iyo imaamkaba ha kula duubtaan oo wax wanaagsan ku hel, wuxuu ku soo aaday maalin ramadaan. maadaama islaamnimo u sheegtayna waxay yidhaahdeen afurka ayaa sugi doontaa. meeshaas waxaa ka cad, runta waa badbaado. runta wax ayaad ku helaysaa, waxaad run ku waysayna been kuma heli kartid.